nabadda wadayaal halkan waa Cadaada Media Group qodobada wararkana waxa ugu waaweyn madaxda filla Soomaaliya oo go'aamisay in xilka laga qaado Abshir Buqaari iyo mooshin xilka qaadisiisa ka dhana oo ka socda aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya oo laga mamnuucay wariyaasha madax bannaan iyo buuq iyo sawaxan ka dhashay kulankii baarlamaanka maanta booliiska Soomaaliya oo la wareegay Ex Hotel Naasahblood 2 ee Muqdisho xabsigana u taxaabay dhammaan ilaaladii hotelkaasi kadib markii ay toogasho ku dileen sargaal sare oo mucaaradka garab siinayay Kenya oo qaadatay tallaabo ay doonayso in dalkeeda ay kaga masaafriso kumanaan Soomaaliya waxaa la ogaaday halka sida goonida masaafriskaasi uu kaga bilaaban doono warbixin ayaan idiin haynaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhowr su'aalood oo la yaab leh ka keenay dayactirka dawladdu ay ku samaysay goobaha xasuusinta ee taalooyinka qaranka maxay yihiin su'aalahaasi warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobadaas iyo kuwa kale oo daahsoon faahfaahintooda u diyaar garooba saaxiibayaal mar kale isu soo noqosho wanaagsan saaxiibayaal Cadaada Media Group ayaa daawanaysan fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka haylaawin inaad gambaleelka ku dhufato xusuusno si la mid ah inaad subscribe tiraadin lana wadaagtin saaxiibadaada kale si ay u daalacdaan warbixinada halkan aynu ku soo daabacno markan qodobadii aad maqasheen faahfaahintooda mid ka mid ah tabiyaasha Cadaada Media Group ayaa inoo haya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay wadaan abaabulayaan mooshin ka dhana gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Abshir Buqaari oo ka mid ah mudanayaasha mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya arintan ayaa waxa lagu wadaa ama la sheegayaa in gadaal ay ka riixayaan oo abaabulayaan madaxda filla Soomaaliya waxayna imaanaysaa kadib markii Abshir Buqaari uu magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland uga qayb galay caleemasaar أحمد محمد السلام أحمد مدوبي إسقونا كسو قرب مقضيه جاميال معارضة ويجوه رجال مدحدي هراء ضلك صومرت عبد الرحمن عبد الشكور ورسم مدحوينها بنكلان مسؤولين كلا أو كيات يال أي كم بديهن حل باندا موشين كوضع أو كوبان شن يطبان حبنود ونكوشرو قدوميها قلها أقل كسر برلمان كصومالية وشركو ياشين مقالة مقديشو أي إصلاقاتي إن مقام كي وأبشر بقاري كي قيب قلي حفلة داسي أي أهد مد أنا صحين إسلام مركزنا aanay u dhamayn gudoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasina waxay abaabushay ama keentay in la abaabulo mucaarado ka dhan ah oo la doonayo xilka laga qaado Abshir Buqaari qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa waxay ku qanacsanayeen doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee uu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxayna ku tilmaameen mid sharci ahayd maadaama dawladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka ay iyagu iska indhatireen sida ay qabaan arintaas kuwa kale ayaa aaminsan in sharci darro ay ahayd oo beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya natiijada doorashadaas aysan aqoonsan wararka qaar aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in xildhibaanadan qaar ay diyaarinayaan soo jeedinta mooshin wax looga weydiinayo Abshir Buqaari gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare sababta kaligiis uu go'aan u qaatay oo uga qayb galay xafladda caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo mucaaradada dawladda federaalka Soomaaliya halkaas ay iskugu tageen Abshir Buqaari ayaa qayb ka ahaa mas'uuliyiin dhaliilsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasna si weyn kaga soo horjeeda madaxda filla Soomaaliya xilligan ee hogaamisa kuwaasi oo xilligaasi u garabeynaya ka qaybgalka xafladda caleemasaarkoodan ugu garabeynayay madaxweynaha Jubbaland ay sida weyn u taageerto dawladda Kenya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude ayaa wariyaasha ka socda warbaahinta madaxa bannaan ee dalka uu sheegay in aan loo baahnayn in ay wax ka tabiyaan xarunta golaha shacabka kulan uu la qaatay gudoomiye Muude wariyaasha qaabilsan inay wax ka soo tabiyaan xarunta shacabka federaalka ee Soomaaliya xarunta golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayuu si cad ugu sheegay in aan looga baahnayn in ay soo xaadiraan ama tabiyaan fadhiyada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya
warkan oo horey u soo baxaya ayaa lagu sheegay in gadaal ay ka riixayaan madaxtooyada Soomaaliya waxaana kaliya loo ogol yahay sida wararku ay sheegayaan tabinta wararka golaha shacabka warbaahinta dawladda oo iskugu jira raadiyaha TV-ga iyo sidoo kale wakaaladaha wararka Soomaaliyeed sida wakaalada wararka ee Zona qaar kamid ah wariyaasha magaalada Muqdisho oo shirkaasi la qaatay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacbiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalka hoose ayaa arintan waxay ka muujiyaan cabasho badan iyo in lagu sii siyaadinayo cunaqabatayntii hore looga hayay inay helaan wararka xafiisyada dawladda haatan dalka ka talisa ayaa caburin warbaahinada la soo baxday waxayna sheegeen in kaamirooyinkooda oo kaliya ay duubayaan arrimaha dawladda federaalka Soomaaliya markan xildhibaanada golaha shacabka ayaa arintan ku kala qaybsan iyadoona qaar kamid oo mucaarad u badan ay doonayaan in loo ogolaado wariyaasha iyo sidoo kale warbaahinta madaxa banaan in si isku mid ay u tabiyaan amaba u helaan xogta xafiisyada dawladda gaar ahaan tan baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaano badan oo horkacayaan xildhibaanada mucaaradka ayaa la soo warinaya in ay doonayaan oo ololeynayaan arintaasi inay ka soo horjeestaan isla markaasina ay dood ka keenaan aysan ogolaanin in arintaasi la sameeyo sidoo kale warar hoose ayaa sheegaya in xildhibaanada qaar ay ku doodayaan in cod loo qaado arintan dhankii loo batana la raaco bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan rabnay inaan ka hadalno arin ku saabsanayd maanta waxaa loo balansanaa furitaanka kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulankiisii koowaad markii wariyaasha lagu marti qaaday xaruntii golaha cusub ee Villa Hargeysa ayaa naloo sheegay hor intaan la gelin in wariyaasha lala kulmo sidaas daraadeed waxaana loo sheegay in hoolka cusub ee la dhisay golaha shacabka ay ku shiri doonaan uu yahay hool aad u cariiri badan goob saxaafadda istaagi kartana aan loo diyaarin hoolka sidaas aawadeed waxaan ku wargeliyay inaanay suurtagal ahayn in wariyaashu ay inta galaan xarunta gudaheeda ay muuqaalo ka duubtaan waxaa kaloo naloo sheegay in qorshe golaha shacabka uu wada ay tahay in qalab iyaga u gooni ah ay keenaan kaamirooyin wariyaasha meel kor loo sameeyo filimkii la duubo halka wariyaasha ay ka qaad doonaan laakiin waa wax soo socda waaye laakiin hadda maxaa xal ah ayaan weydiinay waxaana loo sheegay in maanta aan iska soo saarno laba kaamiramaan si ay muuqaalka noogu soo duubaan inta kalena iska baxaan waxaan u sheegnay in wariyaasha iyo warbaahinadu ay kala duwan yihiin oo xuquuqda muuqaalada xataa ay ku kala duwanaanayaan taasna aanay suurtagal ahayn sidaas daraadeed maanta golihii shacabka furitaankiisii kalfadhiga lixaad kulankiisii koowaad suurtagal ma aysan noqon sabab la xiriirta warbaahinta naloo sheegay meel loogu talagalay oo muuqaalada ka duubtaa inaan jirin laakiin anaka markiina la geeyey oo anaka iyo saddex wariyo kale noo ogolaaday inaan meesha soo aragno waxaan noo muuqanayay in meelo badan oo wax laga duuba karo wariyaasha haddii loo ogolaanayo inay jiri kareen sida qaybaha gadaale qaybaha geesaha ah inay jiri kareen in wariyaasha kaamirooyinka fiican ay wax ka duuban karaan waa haddii la rabay in wariyaasha ay wax duubtaan oo caqabad aan loogu dhigay in baarlamaanka iyo xildhibaanka iyo guddoonada loo dhaxeeyo marka maanta waxaa dhacay inaanan kulankii aanan ka qayb gelin sabab la xiriira in wariyaashii maanta loo sheegay in laba kaamiramaan ay iska soo dhex bixiyaan annaguna ku qanci weynay marka guddoonka golaha iyo dhammaan xildhibaanada waxaan u sheegaynaa in arintaas haddii wax laga qaban karo wax laga qabto oo wariyaasha loo ogolaado way heli karaan meel ay muuqaal ka duubtaan codsigaas la soo gudbinaa saaxiibada kale ayaa iga dambeynaya wariyaasha baarlamaanka ka shaqeeyay ee soo tabiyay wararka golaha shacabka sidaas darteed xalay waxaan lagu casuumay inaan ka qayb galno kulanka koobaad ee kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka si halkaas aan wararka uga soo tabino waxaan ka mid ahaa wariyaashii fariimaha loo soo diray ee lagu casuumay golaha shacabka laakiin saakay markii aan tagnay xarunta Villa Hargeysa oo markaas lagu furayay kulanka baarlamaanka waxaan noola diiday in halkaas aan wararka ka soo tabino sabab la xiriira goobta oo noola sheegay inay ahayd goob ciriiri ah oo wariyaasha aanan deeqaynin waa galnay waa fiirinay waa ay jireen meelo fursado aan ka heli karno oo wax aan ka duuban karno laakiin
guddoonka iyo qaar ka mid ah ilaaladii baarlamaanka ayaa noo diiday inaan warar ka soo tabino sidaas darteed inagu haddii aan hawriyaasha waxaan dalbanaynaa in aysan macquul ahayn in golaha shacabka wariyaashii laga soo celiyo guddoonka iyo baarlamaanka iyo guddiga saxaafadda ee golaha shacabka waxaan ka dalbanaynaa inay arrintan wax qabtaan saxaafaddana loo ogolaado in golaha shacabka ay ka soo hadlaan oo markaasi sidoo kale waxaan ka xunnahay in saakay aan ka qayb geli weynin kala fadhigaasi maadaama aan inagu nahay wariyaashii dadka usoo tabinayay kulamada golaha shacabka iyo waxyaabaha ka dhacayo waxaan dalbanaynaa in arrintaas wax laga qabto lagu laabto isla markaana loo sameeyo meel wariyaasha ay wararka ka soo tabiyaan si kastaba guddoonka xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa arrintan isla qaatay waxayna go'aamiyeen in gabi ahaanba warbaahinta iyo wariyaasha madaxa banaan laga mamnuuco tabinta xogaha ka jira xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya arrintan waxay imaanaysaa iyadoo ay bilowdeen kulamadii ugu horeeyay ee kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo uu magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka daafuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ajandayaasha koowaad ee looga doodayana lagu wada inay qayb ka noqdaan mooshin ka dhan ah booliska Kenya amaba ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya qaybihii dhexe ee warka Cadaada Media Group ayaa daawanaysaan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxay xireen dhammaan ilaalada hoteelka Maida Ekisan Asahablood laba ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir kaasi oo xalay rasaas ay ku fureen ciidamada halkaasi ilaaliya gaari marayay afaafka hore madaxtooyada Soomaaliya uu ku dhintay Maxamed Salebaan Aybakar oo ahaa taliyaha ciidamada Gorgor ee ay tababarka u soo dhameysay dawladda Turkiga sidoo kalena ahaa madaxii ilaalada gaarka ah ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne hore ee Soomaaliya ciidamada booliska ayaa la sheegay in ilaalada hoteelka ay ku xireen xarunta dambi baarista ciidamada booliska Soomaaliyeed ee CID-da isla markaasina baaritaano lagu wado sidoo kale booliska Soomaaliya ayaa la wareegay ammaanka hoteelka waxaana maanta goobta lagu arkayaa ciidamo aad u fara badan oo booliis oo ammaanka sugaya taliyihii ururka Gorgor ee Kumaandoosta Soomaaliya Maxamed Salebaan ayaa waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah kaasi oo kamid ahaa hoggaanka ciidamada kuwooda ugu firfircoon sidoo kalena wuxuu ahaa mid kamid ah dadkii sida weyn uga soo shaqeeyay amniga qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Hoose ilaa iyo hadda si cad looma ogaa sababta keentay in ciidamada ay dilaan taliyaha ciidamada Gorgor ee Kumaandoosta Federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale warar hoose ay sheegayaan in arrintan ay la xiriirto khilaafka soo kala dhaxgalay dawladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed qaybihii ugu dambeeyay ee warka Cadaada Media Group ayaynu isla soo gaarnay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay dib u dhiska iyo dayactirka lagu sameeyay taalooyinka qaranka ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha mucaaradka ee hogaamiya xisbiga wadajir sida weyn u dhaliila tilaabooyinka ay qaado dawladda federaalka Soomaaliya kuwa horumarineed iyo kuwa kale intaba ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in halgamayaasha u soo dagaalamay xornimada dalkeena la xuso laguna xasuusto in halganka ay u galeen xaqiijinta himilo umadeed amaba halista ay naftooda u galiyeen qarannimada Soomaaliya siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa tilmaamay in ay isku qaban weysay taaladii halganka dhintay ee Sayid Maxamed ayaan tagaya halgama kalena waan dhiibaya wuxuu la jeeday xilligaas Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo dawladda federaalka Soomaaliya ay u gacan gelisay dawladda Itoobiya walow markii dambe Abiy Ahmed uu xornimadiisa siiyay waxaa lagu xasuustaa halganka ay u galeen xaqiijinta himilo umadeed amaba halista ay naftooda u galiyaan qaranka waxaa isku kay qaban la taaladii hogaamiye dhintay Sayid Maxamed ayaan tagaya halgama nool Qalbi Dhagax ayaan u gacan gelinayaa dawladda shisheeye waa mid aan shaqeynaynin taasi ayuu sii raaciyay hadalkiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame war qoraal oo ku soo daabacay bartiisa Facebook ayuu arrimahan si faahfaahsan kaga hadlay siyaasigan oo mucaarad ah ayaa inta badan waxa uu si weyn u dhaliilaa arrimaha dawladda federaalka Soomaaliya tilaabo kasta oo ay ku dhaqaaqdo dawladana wuxuu isku dayay inuu ka falceliyo taasi oo aad ugu sii kala fogaadeen madaxda filla Soomaaliya guntii iyo gunaanadkii ayaynu isla soo gaarnay inahaas ayaanu jecelnahay saaxiibayaal inaan ku soo gabangabayno warkii oo aad ka daawanayseen Cadaada Media Group fadlan daawadayaal mar kale waxaan idin xasuusinaynaa haddii aad channelka ku cusubtiin subscribe dhaha sidoo kale gambaleelka ku dhufta si aad u heshaan macluumaadkii u dambeeyay halkan aynu ku soo daabacno tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadiino